ku dhawaad 400 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka ayaa ku biiray booliska Soomaaliya qaarkood waa gabdho iyagu doonaya inay darajo sare ka gaaraan ciidanka booliska haddaba warbixin arrinka ku aadan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diyaariyay wariyaha RTN Aways Maxamuud Jilcow booliska Soomaaliya tira ahaan hadda waxa uu gaaray halkii ugu badnayd burburkii dawladda dhexe kadib dawladaha Djibouti, Uganda, Masar iyo Talyaaniga ayaa kaalinta ugu weyn ka qaatay sidii loo tayan lahaa ciidamada ammaanka dawladda markii ugu horeysay booliska Soomaaliya waxa ka soo muuqday dhalinyaro ka qalin jabiyay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku yaala dalka kaadheed ama Leel Sargaal Firdawsi Cabdillah Abdidoon waxaan ka tirsanahay ciidanka booliska Soomaaliyeed Somali Police Force Firdawsi Cabdullaahi Abdidoon ayaa ka mid ah 42 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaas oo sanad iyo bar ka hor ku biiray ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan waxay ka qalin jabiyeen jaamacadaha ku yaala dalka shalay ayuu tababar ugu soo gabagaboobay dalka Djibouti cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska ee General Kaahiye waxaan ku soo biiray 2016 12 April waxaan muddo tababaran ku qaadanay muddo hal sano iyo bar akademiyada General Kaahiye waxaan jeclaystay inaan ku soo biiro ciidanka booliska anigoo heer jaamacadeed ama jaamacad aan dhameeyay oo ah ardayad Muqdisho wax ka baratay waxaan jeclaystay marka ciidanka booliska aan ku soo biiraayay ama hiddiiladeeda ama himladeeda ugu weyneed ciidanka booliska inaan ugu soo biiray waxay ahayd aniga iyo teamka igu la midka ah oo igu la soo biiray in aan wax ka bedelno ciidanka booliska Soomaaliyeed in aan ka bedelno xaaladda amni ee dalkeena ku jiro maadaama dhalinyarada wadankooda ayaga ay dhistaan tan labaad waxay ahayd tusaale in waxa jecleen ama ifaale in aan u noqono jecleen dhalinta badanaa tahriibta oo dhalinta Soomaaliyeed badanaa lagu xanto ama sida cadba ay tahriibaan sanadihii ugu dambeeyay haweenkii ugu badnaa oo dhalinyaro ah ayaa ku biiray ciidanka booliska Soomaaliya Firdawso waxay rajaynaysaa inay noqoto gabadhii ugu horeysay oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo gaarta darajada generaal ciidanka inkastoo hadda aysan jirin gabadh generaal macnaheedu sida aan jecelahay niyadeeda ee rabto waxa jecelahay ama rajaynayaa gabadha ugu horeysa oo generaal Soomaaliya ka noqoto inaan noqdo dadaalkeedana waa haya aadna waxa u jecelahay ilaa future-kayga dambe mustaqbalkayga dambe ina ciidanimo aan ku soo idleeyo General Cabdixakiin Daahir Saciid taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ciidamada cusub ee ku soo biiray booliska Soomaaliya ugu baaqay inay u shaqeeyaan dadkooda qof kasto mas'uul oo wax garanaya oo dareemaya mas'uuliyadda saaran oo rasuul amniga halkan la saaray wiil iyo gabar sareey ilaa ay dable mas'uuliyad culus ayaa mudan saaran dadka qaarkood wali walaaho ku jiraan walaaho laga baxo xaqiiqda loo soo jeesto ummadani dalka in loo sheego baahan qaybaha dambe ee munaasabadan waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska dalka Talyaaniga General De Corba kaasoo ilaa gelinkii dambe ee maanta magaalada Muqdisho kulamo kula qaadanayay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sareysa ciidanka dawladda Aways Maxamuud Jilcow RTN TV Muqdisho